bulshadii accountadii current-ga isticmaalaan iyo unfurn si free iyadoo xafiis iyo roon in barnaamijka furn korintii waliba ka dhawaasay hotel Karlaadi waliba qiibooda ku taa toddobaadkan weedu koonfur galbeed ka IBS bank ahaan maysin ku dhiganya kuwa goolka toddobaadkan ma eedan faraxsanaa in qiib ku haana bandhiga toddobaadka koonfur galbeed suubiyaas IBS bank deegaanada koonfur galbeed may ka haye shaqadeedan tar badan adeegyaduna hayn may kumada ageeg ha bandhigni in bulshadii accountadii current-ga iyo isticmaalaan iyo unfurn si free iyadoo xafiis iyo roon in barnaamijka furn company accountadii unfurn in sharaxan maalgelintu uu hayn maadaama walaalaha bandhiga ay kumada beerogi ganacsiyaalka shal duwan IBS qaybtu inuu soo horeen ku jeeysadii iyo walaal saatu ku jeeysadii doon intaas bandhigani oo bulshada in sharaxani walaal bandhignay oo banaanka la kooyno kumada may kale ku faa'iideysaan toddobaadka nabad oo koonfur galbeed la ka bandhigay in qayb ku ana oo barnaamij badan tala galnay oo 8 bir hadareerta usbuucan hadareer ha bandhigo doon iyo geeka oo bandhig wiinaytu in roon eedan faraxsana in qayb ku haan barlamaan yoolkin kiwin ka abisama iyo maysa markaas walaal bandhig ka haytan soo kalmeed farintada yoolkan kiwin ma ayaa ani ganacsada deegaanka Korhangaan in maalgelin suubin in hoolayo haystaan iyo meel amaan ee nabadleenka inka save gareyn tan taas oo kale may bangi biyay adeegi masarkaar iyo kaar oo caalami ah madaxda inta ku galaas ma inta galnay in kaararkaas ku gan oo una meel raay inka deegna iniyo isticmaalaan saasoo kale furn tan kale may bangi yool eleeya in beeraleyda kor laangaada dadkan tiro may kumada dadkii malabka saaray dadkii ganacsiga suubiyay dadkii beero lahaayeen marka yoona may sharaxeen in Korhangaan balgelintiin hordhaan bangi suubiyay in hatan marlamaad tiir wala shaqay farintay ma ta anil kun shaqay nabadda deegaan iyo dalka dhan anil ku shaqay horumarka deegaan in Korlangaada in bandhigin oo kale la badi toddobaadka nabadda sanadkan sanad hadareer in si isu ku fayl in si naqdo rajaan insha Allah